ووضعه إنه الصدى هذا إلى لنيا reer galbeed waxay u arkeen kos badan inay ku joogayso inay ilaaliyaan inaan sidaa waxba iska bedelin laakiin waxay heleen cid ay ka dhaadhiciyaan inay dowrkaa qaadato ay ku dhaqaala siiyaan yuhuudda caalamkaa la soo ururiyey dad baa dhulkoodii laga qaaday waa la dejiyey waxaa la yidhi wadcigaa inaan waxba iska bedelin ilaaliya kii yidhaahda hub baan samaysanayaa garaaca kii yidhaahda nuclear baan u dhaqaaqayaa tuma kii yidhaahda waxa ka garaaca all daddy weerka oo dhan idinku qabta shaqooyinka foosha xun lee dowladaha waaweyn ka yara cabsanayaan oo dhan idinku noqda kuwa fulinaya annana hub dhaqaale qaanuun sharci waxa u baahantihi waar carruurta cunaha la siiyaa la leeyaho maraykan wuxuu leeyahay veto waxay idhahdaan united nation intii veto ka dhacday maraykan sameeyey nus in ka badan waxa lagu isticmaalay xuquuqda falastiin in lagu awdo ama israa'iil inaan lagu taageerin oo aan lagu ceebayn ama wax ka soo raacin idan hadda marxaladaasay joogtaa أحد الخبراء في الصهيونية عبد الوهاب المسيري رحمة الله عليه نيكي لورنجري ayaa wuxuu yidhi israa'iil waxay u dhigantaa buu leeyahay maanta maraykan hadduu shaqadan isagu qabsan lahaa buu leeyahay ugu yaraan wuxuu u baahan lahaa 5 xaamilaatu daa'iraat oo meesha joogta maraakiibtan dayuuradaha iyo wuxoodii hubkoodaba sita 5 ka mid u baahnaan lahaa buu leeyahay halka markab ee noocaasina 10 bilyan baa ku baxa wuxuu helay bay leeyihiin cid isaga u dhimatay iyo afkaartiisa 10 bilyan uu siiyo marka israa'iil waxay la qiimatay hal xaamilaatu daa'ira marka maraykan loo eego halkuu 5 ka keensan lahaa mid buu helay weliba ay ula socoto inaan isaga dadkiisu dhimanaynin in cid kale ay noqonayso cidda dhimanaysa intuu xaamilaatu daa'iraadka meesha keenay oo israa'iil ayuu haddana yidhi aniguna dhex baan idiin ahay anaa taswiyadiina iyo waxa isku haysaan iyo cidda garnaqaysaana waa aniga wadciga muslimiintu saasuu u nooliyey waa wadciga wada garanaysaa waxaan rabaa markaa inaan qisada nebi ibraahim u ka warramo fi suurati albaqara sideedaba qur'aanka nebiyullaahi ibraahim 25 suuradood oo qur'aanka ka mida baa ilaahay magaciisa ku sheegay waxaanu magaciisu ku soo arooray qur'aanka 69 jeer baa magaca nebi ibraahim ku soo arooray meesha ugu horreysa qur'aanka uu ku yaalla waa waid ibtalaa ibraahiima rabbuhu bikalimaatin faatammahun qaala innii jaaciluka linnaasi imaama qaala wamin durriyati qaala laa yanaalu cahdi aalimiin وهل آيات بولي أفريا لبا تنادي من سورة البقرة وهي كده بيسا قصدي بستانكي كعبة إيو وحي لسي هالمانا آيات دتن إلهي وحلي وحد حستانون نبي محمد ودنك وشاكتان إذ ابتلى إبراهيم ربه مركو الابتلاء افتعال من البلاء مركو امتحاني اختباري إبراهيم تست بلقلي مدى إيمانه مدى التزامه مركا الله اتحامي النبي إبراهيم ضدك وشيك با إله إليه سبحانه وتعالى محاله اتحامي النبي إبراهيم آيات مشيك بكلمات نكرة لمسأروري مفسرين تورا ربيش لكن القرآن يحدث دونكم مسأرورين exactly حوية إلهي وحكوت المامي كلمته يا الله اتحامه وحانا اللي امتحان كاسي فأتمهن الفاء للتعقيب والترتيب مركب وفلية إبراهيم وحي الله فري اللغو اتحامي امتحان كاسي امتحان نوع دون النغوكرة ويا الأصل القاعدة العامة بالوحي طهيبا بشر كاين لا يتحامي بل علماء البركود با وحي هذا وحلو أبو ريبا وين لا يتحامي عبادتنا امتحانكم بكمت إنه دعنا بني آدم يقول إلهي عبد الله أي لا أبو
waxay culamada qaarkood leeyihin in la itixaamaabaa loo abuuraye cibaadadu waxay ka mid tahay wixii lagu itixaamaya cibaadada ka mid waayo ilaahay qur-aanka wuxuu ku leeyahy inaa khalaqna alinsaana min nudfatin amshaajin nabtaliih fajacalnaahu samiican basiira bini aadamka waa abuuray baa ilaahay leeya oo candhuuf laysu geeyey amshaaja mukhtalata ayaa laga abuuray hooyii aabba isu tegay baa laga abuuray istinaa'aat yar mooyaane yani ciise iyo nebiyullaahi aadam marka laga reebay inta kale inuu naqaano wax laga abuuray hooyii aabba isu tegay ilaahay wuxuu tilmaamayaa waxaana loo abuuray in la itixaamo idan waxaan leenahay ibtilaagu asliyan waa qadar maqduur calaa bani aadama jamiica waa shay bini aadam oo dhami uu marayo loogu talagalay ibtilaagaasi oo ilaahay sunankiisa ka midi ama ha noqdo ka qadariga ah ee dhacdooyinkan dunida ka dhacaya ama ha noqdo ka tashriiciga iyo takaaliifta la ysbaray wuxuuba waa imtixaankaas siday bini aadamku uga jawaabaan baa darajadooda adduun iyo ta aakhiraba ahaanaysa adduunka cinda allahi mustawaha ku yeelanaysaa waa jawaabta aad ka bixiso imtixaanka aakhiro mansiladaad yeelanaysaana waa jawaabta aad imtixaankaa ka bixiso walidalik baa ilaahay qur-aanka wuxuu inoogu tilmaamayaa walanabluwannakum bishayin min alkhawf wاljuuc wanaqsin min alamwaali walanfus wاthamaraat wabashir الsaabiriin waxaanu dadka ku imtixaami doonaa baa ilaahay leeyay cabsi wax ka mida gaajo wax ka mida xoolaho ka yaraada wax ka mida naftoo yaraatoo la laaya wax ka mida midhaho iyo abaaro yacni maqaadir tiro badanna lagu imtixaami doonaa waxaana ilaahay yidhi wabashir الsaabiriin kuwa sabra u bushaaree imaamnimada adduunka inuu qofku imaam noqdo yuqtadaa bihi fi dunya wadiin ba in qof lagu dayan karo u noqdo laguma helo buu qur-aanku tilmaamaya ilaa biالصabri wاlyaqiin mooyaane wajacalnaa minhum a'immata yahduuna biamrina lama sabaruu biaayaatina yuuqinuun ilaahay wuxuu leeyahy reer banu israa'iil intuu ka soo warramay waxaa dhexdooda ka mid ahaa a'ima imaamku dee waa imaamkaas iyo kalow waa qof lagu daydo oo khayrka lagaga daydo a'imo sharka lagaga daydana waa jiraan sida ilaahay fircoon iyo gruubkiisa uu ku tilmaamayo a'immatan yadcuuna ila annaar buu ilaahay ku tilmaamay laakiin halkan waxaa laga warramayaa imaamnimada khayrka ee dadka hanuuniya waa mansilo lagu gaadho maxay lamaa sabaruu wa kaanuu biaayaatina yuuqinuun marka ay sabraan takaaliiftay ku sabrayaan maqaadiirta dunida ka dhacaysay ku sabrayaan wa kaanuu biaayaatina yuuqinuun yaqiinna way ku qabaan sharcigan ilaahay iyo waxaan ay fulinayaan ay raacayaan waa kuwa yaqiinsan baa ilaahay ku tilmaamaya subxaana wa tacaala aniga yani waxaan jeclaystay inaan idinla faa'iidaysto oo aan idiin soo gudbiyo idinkana aad faa'iidaysataan insha allah ha baqiilin oo ha noqon baqiil la wadaag walalaha kale si ay igana ka faa'iidaystaan insha allah jalka sare u qaada waxaan rajaynayaa inkastoo ayaankan aan ka mashquulay oo yara xanuunsanaa inaad ii soo duceyn doontaan dhammaanteen alla subxaana wa tacaala ha naga aqbalo ramadaanka ilaahayna ha naga yeelo kuwii nabad ku dhamaysta oona laga aqbalo ramadaankooda soonka iyo salaadaba insha allah acmaasha wanaagsanna allah inagu digo dhammaanteena allah inaga yeelo kuwa farxad bashbash barwaaqo ku ciida insha allah muuqaalkan hadduu kusoo gaaro walaalkay walaashay waxaan kaa codsanayaa si naxariis leh inaad sare uga qaado waayo ajar ayaad ka helaysaa oo wax xumaan ah kama helaysid wax wanaagsan keliya ayaad ka helaysaa insha allah siina faafi khayrka alla ajar ha kaa siiyo insha allah waxaana ka rajaynayaa alla xaggiisa inuu dhammaanteen ajir naga siin doono insha allah waxaan idinka tegayaa tani kulada dambe muuqaalo kaloo la mid ah insha allah waxaan jeclahay markasta inaan soo badiyo oon yacni khayrka aan faafiyo idinkana igu garabsiya
dhammaantoodna aan isku soo duceyn insha allah intayna bogta allah caafiyo kana caafimaad qaban ilaah iga idiyo markasta ducada walaalka way wanaagsantahay inaad duceyso insha allah waxaad idinka tagayaa tan iyo kulanti dambe wabilaahi towfiiq wassalaamu calaykum waraxmatullahi taala